Assalaamu calaykum waraxmatullah. Waxaan filayaa inaad diyaarad mar uun raacday ama aad rajaynaysid inaad mar uun raaci doontid diyaarad. Laakiin markaan kuu soo gudbiyey dhowrkan macluumaad, ayaad ka hayn doontaa waxyaabaha ka dhacaya diyaaradda dhexdeeda. Markaad diyaaradda fuushan tahay, sistamka moobilkaaga waa la damiyaa. Ha noqoto laptop amba device kale oo isticmaalaysid, taasoo khatar u keeni karta diyaaradda, oona sababi karta inay diyaaraddaasi khalkhal ku dhacdo socdaalkeeda, keeni karta inay diyaaraddaasi dhacdo. Sababta ayaa waxa ay tahay device-ka aad isticmaalaysid khalkhal ayuu gelinayaa habsami u socodka diyaaradda iyo madaarka ay xogta isweydaarsanayaan. Waxaanu sistamka moobilkaagu ku shaqayn doonaa amba device-ka aad isticmaalaysid marka ay diyaaraddu gaadho 10,000 oo feet oo u dhiganta 3,408 mitir. Marnaba lagama yaabo in ay cuntada diyaaradda saaran tahay ay cunaan shaqaalaha ka shaqaynaya diyaaradda. Taasi micnaheedu waxa weeyaan in cuntada diyaaradda saaran ayna caafimaadkeedu hagaagsanayn. Taasina waa sababta keentay inayna cunin shaqaalaha ka shaqaynaya diyaaradda cuntada, taasoo taalay maalmo amba maalmaha ay diyaaraddu shaqaynaysay. Haddii ay tahay markii kuugu horreysay ee aad diyaarad raacaysid, waxaad ka walwalaysaa goobta ugu fiican ee aad fadhiisan lahayd, ahna meel haddii aad diyaaraddu khalkhal gasho amba ay dhacdo ku badbaadi lahayd. Ilaahay bay badbaadada haye. Kadib markii ay saynisyahano badan ka falanqoodeen meesha ugu xooggan ee haddii ay diyaaraddu dhacdo aanay waxba noqonayn, ayaa waxa ay tahay meesha dhexe ee baalka xigta, kuwaasi oo aad u xooggan, kana xooggan dhinacyada kale ay kuraasidu yaalaan, taasi oo keeni kartana haddii ay diyaaraddu dhacdo inaanay waxba noqon. Diyaaradda qaybta ugu dambeysa runtii waa qayb aad u khatar ah. Haddii ay diyaaraddu dhacdo, waxaa laga yaabaa in aan midhna loogu tagin meesha ugu dambeysa wax ka badbaaday. Laakiin qiimaha kursiga kaliya ee ay fadhiisato gabadha ka shaqaysa diyaaradda ayaa qiimihiisu ka badan yahay 3 kursi lacagtood, taasi oo ay qaadanayso qofta ka shaqaynaysa amba fadhiisanaysa kursigaasi.